laba saxaabi oo walaala ahaa baa jiray. labadaa saxaabi mid baa cibaadada dadaal badnaa oo aad u dadaal badnaa, ka kale waa laga dadaal badnaa. kii cibaadada dadaalka badnaa ayaa shahiidnimo qaatoo jihaadkii lagu dilay, kii kalena sannad buu sii noolaa oo ka nolol dembeeyey. markii dambena jihaad laguma diline bes ayuu u dhintay. saxaabi baa labadiiba ku riyooday. labadii ninee walaalaha ahaa ee midna shahiidnimo qaatay midna besta u dhintay, sannadkana kala dembeeyey ayuu ku riyooday. kii besta u dhintay ee sannadka dembeeyey inuu jannada horraan galay. saxaabigiiba arrinkaa la yaabay. nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u sheegay. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, maxaa kula yaabaysaan? ninkani sannad quru hadda ka geeri dembeeyey, waa sana waaxida, waa sannad keli ah, maxaa ula yaabaysaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. miyaanu dabadii ramadaan soomin? miyaanu 6,000 oo ragcadood tukan iyo intaasoo sunno ah? waxaa u dhaxeeya inta cirkiiyo dhulka udhaxaysa. xadiiskaasi duruq kala duwan buu leeyahay. xadiiskii talxa iyo xadiiskii abi hurayra mid walba waa ku soo arooray. marka xadiiskaasi waa xadiis saabita, duruqdaasina waa isquweynaysaa, waa sugan yahay. ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen. 6,000 ragcadood waxaa looga jeedaa faralladii, waayo maalin kasta 5 salaadood baa inagu faral ah. 5 salaadood waa 17 ragcadood. sannadkii qamariga ahaa marka haddaba lagu dhufto sannadkii bisha la eegaayey ee dayaxa laga tirinayay waa 354 maalmood. sannadka bishaa laga tirinayaa ee dayaxa laga eegayaa waa 354 maalmood. 354 maalmood marka lagu dhufto 17 ragcadood oo maalin kasta ah, 24kii saacadood kasta 17 ragcadood oo faral la tukanayo, waxay noqonaysaa 6,018 ragcadood. yacnii 6,000 iyo dheeraad bay noqonaysaa ragcadood. intaa waxa dheer sunnayaashii. hadday dhacdo 13 ragcadood inuu tukado oo sunno ah, 4,600 oo ragcadood oo sunno ah wax ka badan baa halkaana ka soo ururaya. macnaheedu waxay noqonaysaa 10,000 oo ragcadood wax ka badan waa tukaday. ramadaanna dabadii waa soomay. waxay ku tusinaysaa fadliga ramadaan siduu u weyn yahay ayay ku tusinaysaa. nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu alayh wasalam, waxaa labadooda u dhaxeeya cirka iyo dhulku inta u dhaxaysoo kale ayaa u dhaxaysa. taa waxaa laga qaadanayaa cimriga dheer haddii camal wanaagsani raaco derajo ahaan inaan cidi gaadhayn. oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam, khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluh. waxaa idinku khayr badan ka cimrigiisuna dheeraado, camalkiisuna samaado, camalkiisuna wanaagsanaado ayaa idinku khayr badan. marka waxaa laga qaadanayaa cimriga dheer haddii camal wanaagsan lagaga faa'iidaysto in xataa laga hormarayo ruuxii cimriga gaabnaa laakiin camallada waaweyn la yimi, in kaa cimriga dheeri ka derajo badanayo ayaa laga qaadanaya. ummaddanna cimrigeedu sideedaba waa yar yihiin. acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70. cimriyada ummaddaydu waa inta 60 iyo 70 u dhaxaysa, waa inta sida qaalibka ah. wa aqalluhum man yajuusu dalik. cidda ka tallowdaa oo ka gudubtaa 70 waa yar tahay. sidaas aawadeed ha lagaga faa'iidaysto fursadaha qaaliga ah ama wakhtiyada fadliga badan oo laylatulqadri uu ka mid yahay, waa in lagaga faa'iidaystaa si waxa weeye fadli badan iyo ajar badan loo helo.